السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal ku soo dhawaada qormadeeni tagtadii tixraac iyo qaybtii saddexaad ee sheekadii qamaan bulxan iyo barin Sheekh Cabdullaahi Cali. waxay inoo mareysay barni oo la socota safar xagga reerka u soo socda ay dhaxda kula furantay qolyo ka yimid xagga ay reerkoodii kadibna markii ay iska wareysteen xaaladihii reerka oo mid ka mid ah kula taliyay barni in ay xagga reerkii u kacdo halka ay inoo joogtay qaybteennii hore qayb saddexaadna ka sii ambaqaadaynaa idamka eebe. barni hadalkaa way u riyaaqday wayna ka weecatay waddadii ay hiiga ku haysay waxayna raacday safar u socda dhinaca iyo reerkoodii waxay naba tagtay reerkoodii waxay awrteedii ku furatay harqoodaalkii aqalkii hooyadeed kalgacayl iyo soo dhoweyn bay halkaa kala kulantay qamaanna warkii waa loo geeyey in barni ay halkaa iyo reerkoodii qabatay hase ahaatee qamaan ma dhibsanin arrintaa wuxuuna istusay inay doonatay dhibaad ama ay aabbaheed iyo hooyadeed ka soo ducaysanayso wuxuuna ku fakeray labadaa midkii ay noqotaba dhibaato ma laha ee waa wanaag. xilligu waa berisamaa fiidkii waxaa la dhamaa caano idaad subaxiina waxaa lagu durduurtaa caano lo-aad. haddaba iyadoo markii horeba eebbe qurux u dhaliyey barni oo ninkii arkaaba ku indhadiraandiro ayaa markii ay muddo joogtay midabkeedii midab ku darsamay har galabeed meeygu oo hooray magool baxay midho castii hawd iyo deegaan casir joogta mid aad rumaysaba sow rag ma beer qaadin. kadib waxaa ka war helay joogitaanka barni ama in ay reerkoodii ku soo laabatay ninkii ay markii hore isku qabteen guurkeeda qamaan isla markiina isaga oo aan wax badan baysa sii weydiinin ayuu ninkii soo dul fadhiistay reer Sheekh Cabdulle wuxuuna af buuxa ku yidhi shalay bay barni i dhaaftay ee maanta ima dhaafto. kadibna markii rag isugu yimid ee xaajadaa la rogrogay waxaa la yidhi war gabadha nin baan ku ogeyn geeridiisana maanaan maqal ee sidaan kuu siinaa ama ay suuragal u tahay. raggii goobta joogay hawshaa way ku kala aragti duwanaadeen qaar way ka xumaadeen in hawshaasi dhacdo halka qaar ay u xusul duubeen in qamaan xaaska laga dhaco. raggii ka xumaa in qamaan gabadha laga qaado ayaa farriin hoosta uga diray oo ku yidhi afadaadii degdeg ugu imow inta aydaan rag isku arkin. qamaan markii farriinta loo geeyey dareen culus baa galay wuxuuna tiriyey gabay dheer oo ergo ah gabaygaas oo uu soo faray nin uu aad ugu kalsoonaa oo la odhan jiray aw cumar. gabaygaas oo uu qaybta hore ugu ducaynayo aw cumar in eebbaweyne ka nabadgeliyo dhibaatooyinka lagala kulmo jidadka oo ay ka mid yihiin turunturrada xalaqa waraabaha colka. qaybta labaadna waa farriin uu ugaga ergeynayay seediyadii in ayna samaynin arrinta qamaan soo gaadhay ee ah in barni lagu daro nin kale iyo in haddii taa la sameeya ay tahay xumaan loola badheedhay oo aan qabanin islamarkaana aanu cuntamin iyagu in ay sameeyaan. qaybta ugu dambaysana waa waano uu seediyadii ku waaninayo wuxuu yidhi aw cumar gadoontay haddaad naga guddaan caawa rabbi haydin geeyey haddaad gamac malayn weydo aad gaambisaan socota waa galangalcootaaye guluf iyo luguurtiyo col weyn galalaftii weerar god abeeso good iyo mas iyo goosatada hoose waddada goonyaheediyo dil iyo guuldarriya qoofal galow iyo shimbiro geelah iyo guuldarriya qaylo guraar dhagaxa geed mudalug iyo gacandhi sii jeedda wiilgaati gool iyo libaax kucumo aar yeeshay gantaal eeba goos iyo wixii gubaya jiirkaaga gunti nebi allaha kaa gashiyo golaha yaasiini gaambiyo haddaad naba tagtaan gurarka aw nuuxa ismaaciilka gaanka ah haddaad war u gamuumiyayso wadaadkii islaamkuba gartee gacanta saarayey gabaygaanku fara iiga gee igu gar weeyaane nabsi lama gurtee seediyaal guda amuurtayda gadaafiyo xaq lama soo dudee guudcaddaha miidha dabadeed gadday idinla tahay soo gadaal celiya aniguna wixii ila gudboon gaar aan ula shawro gaal iyo garuun niman noqdoon haybi kala geynin ninba goosankii kale kobtuu kaga golroonaado ee gebalkii godo foolxun iyo geeri kala dhawra ee gebalkii goodiga qotaad garowga fuudaayo ee gebalkii gooshiga berbere galayo baysteynka ee gebalkii gubantaa isaaq goraya cawloobay ee gebalkii gocorkii hartiyo gorod la beeleeyey ee gebalkii guunyada dabtoo guraya raadkeeda
ee gebalkii gaarkiyo naftii geliyey reer naa'ib ee gebalkii gundhaha hoose iyo guriga sii seexan ee gebalkii reer aadan gow gacanta saaraayo ee gebalkii guuf iyo xuseen garab ku taagleeyey ee gebalkii guddoon iyo lahayn hebel inoo geeya ee gebalkii dhowr webi gudbay ee haybti garan waayey ee gebalkii gews iyo sur iyo gudun ku sooryoodo ee gebalkii sidii geenyadiiyo gabdhaha loo jeedlo ee gebalkii sidii goonibaadh giirka laga toogto intaasaa geyiga reer tolkay qoysba gaar maree guntigaan maroorsaday anoon meel isugu geynin guurka nama sugtaan dayrna waa geedi reer khalaf dheh ninna gudubti kama baaqata ee ha u gammaanaato ha u garooro waa wada qabnaa gebiga daarood ah. kadib hawshii intaa ma ayna ku istaagina way sii socotay qabaangabaygaa markuu u diray waxba kuma aysan qaadanin qoladii u fadhiday inay qaban gabadha ka qaadaanna way tashadeen waxayna ku tashadeen awel baa gabadha nalaga qaaday arrintaana waan ku ciil qabnay godob kasta ha keento ragba ha isugu go'o geyigan ayaan la wada daaqin deris yaan la ahaan dab yaan la kala qaadan doog yaan la wada daaqin wallee barnimaanta geesna nooma dhaafto dibna qorraxay uguma noqoto sidaas ayay ku tashadeen markaa barni waa qamaan afadiisa xoolo badan iyo hanti badan buuna ka bixiyey sidaan hore u soo xusnay meher xalaala buu ku qabaa ma furin kamana dhiman qiil sharci ah ma jiraa ayay nimankii dib isu weydiiyeen markay go'aankaa qaateen wadaadadii baa talo loogu noqday wax badan baa la rogrogay aw hebel ha loo tago ha la weydiiyo inta sharciga taqaana sidii barni xaalkeeda maarayn loogu heli lahaa sidoo kale ha laga taliyo haddii masalo sharci ah loo waayo waxa laga yeelayo markii taladaa la wareejiyey ayuunin yidhi anaa garanaya walow barni iyo qamaan ay muddo wada joogeen haddana waxa isu dhaleen oo ubad ihi ma jiro sidaa awgeed aan ka dhaadhicinno gabadha inuu qamaan mandhalays yahay mid kalaa ka hoos qaado oo ku yidhi war taasi ma dhici karto caqligana ma geli karto kaasi hadal ma aha war rag loo geeyana ma sheegaysid qamaan rag badan buu dhalay ifkay joogaan ee taasi ma soconaysee arrin kale ha la keeno kadib wadaad baa soo galay masale gaab kitaabkiisu wax ma xalaaleeyo waxna ma xaaraameeyee wuxuu weydiiyey raggii gabadhu inteebay qamaan ka soo maqan tahay waxaa loogu jawaabay awgayow gu iyo dayrtiis haddana su'aal kaluu celiyey oo wuxuu yidhi wax xoolo ah ma ka haysataa waxaa loogu jawaabay awgayow maya waxba kama haysato markaa wuxuu soo jeediyey mar hadday sidaa tahay maan gabadha fasaqno ama aan carrabka ugu tirno inay iyadu isfasaqdo markuu wadaad arrintaas soo jeediyey mid kale ayaa ku raacay hadal iyo dhammaantiis culimmadii abaskuul waxay isku raaceen in qamaan gabadha laga fasaqo hase ahaatee wadaad abbayoonis ah ayaa arrintaa ku gacan saydhay wuxuu yidhi fasaqaasi ansax ma aha qamaanna sidaa lagama furi karo gabadha si kastaba ha ahaatee sidaasaa la lahaa iyo hadalladii meesha ka socday ayaa qamaan loo geeyey waxaa lagu yidhi calaf iyo kitaabkoo ku-caynsho mooyaane culimmadii galbeed in gabadha lagaa fasaqo ayay u fadhiday ha yeeshee taa waa uu qaadan waayey aad bay ula adkaatay waa uuna ka dhakafaaray mana ayna ahayn arrin uu maanka ku hayey in gabadhii uu sida wanaagsan ku guursaday hantida badanna ka bixiyey in sidaa fudud la isugu raaco in la xumeeyo ama gabadha laga fasaqo wuxuuna halkaa ka tiriyey gabay calaacal ah oo uu kaga warramayo barni helitaankeedii inta uu hanti u huray intuu u soo dadaalay iyo wanaagga uu ku soo dhaqay wuxuu yidhi naagtaan culuuf iyo calaaf culus ka dhiibaayay cishriinka naagtaan ka dhigay caamanimadayda naagtaan cadwaan iyo tol iyo xidid ku caydheeyey naagtaan cillaankiya lahaa cadarka naa'iibso naagtaan cabbaadhkiiyo kurkiyo cududadii buuxshay naagtii ciddida hoosiyo gacantu ciiraysay naagtaan jidhkeedii camiray cagaha mooyaane naagtaan cadceeddiyo lahaa cirridduyay taaban caku kolay ku tahay naagtaan lahaa hayga caasiina codkii maxamed naagtuu yidhi cali ha ii keenin naagtaan cadaabkii la galay uga cabsoonaayeen naagtaan cishadii layshantiyey halaacashaa dhiibay naagtaan cibaarada lahaa cudurtiyay sheegan hadday haatan caadadii haween iga cajeelayso nin adduun camirayow maxaa cudurti kuu laaban adoo caawa jiibsaday maxay kugu caddaan xaajo calafse waa kobtiisee bal'aan culimmadii dhowra haddiise caasho iyo wiilal iyo caana la isiiyo oo ani aroos caraf leh oo caarran la igeeyo wallee cududda iga naafataan ii cayilin waana
muddo kadib barni fasaq baa loogu jiiday waxaana loo meheriyey qawdharta cismaan dabadeed qamaan oo la fadhiya saaxiibkii oo la odhan jiray haybe cabdulla axmed ayaa si cad loogu sheegay in barni la fasaqay arrintaa markuu qamaan maqlay waa gabalmadoobaaday goradduu laalaadshay geesna waa dayi waayey isagoo meel uu joogo garanla ayuu saaxiibkii haybe ku yidhi qamaan soo kac aan reerka tagnee qamaan waa hadli waayey in uu guriga tagana waa keli waayey qamaan isagoo aad u murugaysan oo gorrisaya ayuu tiriyey gabay uu saaxiibkii ugu sheegayo inuusan caawa guriga iyo duurkaba kala jeclayn wuxuuna yidhi gartay weeye haybow inaan gama'a diidaaye waxba gaadh ha ii dhigin hurdada gama' la ii diidiye rag wax gaadhay gaariduu qabay guur nin lagu sheegay iyo gamas mariid loo dhex galay goonjigii hilibka u gudboone labadaa halbuu gama'a diidaaye aniguna gaddii baan ahay guriga haygeynin nimay qaaxa feedhaha gashoo malaxi gaashaysegi hadduu yidhaah maydhaqaan gocosho daynayna wad guddoonsay saadkana ninkaa guraya weeyaane aniguna gaddii baan ahay guriga haygeyni geenyada bakhtiga kii arkee gudub u raadgooyey ee goobay madaxaan ahay guriga haygeynin lo'da miirta shalay soo gashee gaawo laga waayey ee gaadh istiri baan ahay guriga haygeynin guska iyo xiniinyaha ninkii laga garraadeeyey gadaalkiina rooraan ahay guriga haygeynin markuu gurigii tegey cunto waa cuni waayey gobashiina dhinaciisu wuu diiday tallan iyo inuu maskaxdiisa la showro ayuu ku waagaracsaday ma ergaad dirataa ma duullaan baad bixisaa ma dar ilaahay baad u samirtaa maxaad yeeshaa tala waa ku caddaad xaajadu ugub ma ah rag tanoo kale hadday qabsato muxuu yeeli jiray la yaab iyo wax maankiisa ka degi waayey ayay ku noqotay hase ahaatee ugu dambayn waxay tala kaga go'day allaylehe gugu ha da'o reeruhu ha isu soo guuraan bannaanka qorraxay ha la soo wada dego raggu ha isu wada yimaado nimanka afadaadii duhur dharaareed afduubay duullaan iyo dagaal u kala calaf qaada qamaan sidaa ayuu tala ku goostay dabadeedna gabaygan ayuu tiriyey dadku maataduu kala jirtaa muran ka ognayna haddii haatan la yskaga maljaday murug adduunkii iyo muslinow balmaqal xaajadaa la ysku maraqsiiyey ninba tuu miliilaco haween maraqla' weeyaane waa midigta saar dumar ninkii moodi tuu qabaye muslinow balmaqal xaajadaa la ysku maraqsiiyey anoon marantidaydii dayicin meel fogna aan joogin oo shalay ninkeedii tegayoo gaadhi kara maanta muslinow balmaqal xaajadaa la ysku maraqsiiyey iyadoo maandheeri casqabtoo socod mushaaxaysa oo aanan maqnayn oo fadhiya maqasha foofkeeda muslinow balmaqal xaajadaa la ysku maraqsiiyey maadhiinka buuxiya intay midigtu laamayso aan midhaha reer magan warfaa magacu duugoobin rabbigow makhraatiya inay moorla dhici naagto sidii uu qamaan dhaawaday gugii baa da'ay degmadii galbeed baa xagga bari u soo guurtay degmadii beri joogtay baa soo fadabaxday bannaanka qorraxay baa la wada degey qamaan odayaal buu socday waxayna fadhiisteen daartii daraawiishtu qorraxay ka dhisatay si looga tashado waxa barni sheekh cabdullaah arrinteeda laga yeeli lahaa iyagoo tala u fadhiya ha yeeshee aan weli wax go'an hiyigooduse yahay in duulaan la qalqaaliyo ayaa waxaa dhacday arrin aan la filaynin oo maxay tahay ninkii barni guursaday reerahoodii ayaa bari u soo naq raacay oo meel dhow soo degay hase ahaatee war looma hayo koox dhallinyaro ah ayaa saqaafo isaga baxday iyadoo aftinta degmada banka qorraxay maraya ayay arkeen degmo go'doon ah oo galbeed ka soo guurtay oo dooxa qolqol deggan way isweydiiyeen war reeruhu waa ayo iyo aan tooyanno kadib markii la tooyday waxaa lagu yidhi reeruhu waa ree hebel markay dantoodii soo bogteen ayay dib u soo noqdeen haddiiba la waraystay
waxay yidhaahdeen waxaanu aragnay beel reer hebel noo sheegatay oo galbeed ka soo guurtay oo soo degtay balligii qolqol wax dhibaataa mayna noo sheegin halkaana naq fiican bay ka daaqayeen durba hadalkii baa laysdhex mariyey waxaana la tuhmay inay yihiin reerihii barni sheekh cabdulle guursaday iyadoo aan loo tashanin qamaanna warkaa aan la gaadhsiinin ayaa 20 wiil oo dhallinyarihii durdurisay kadibna intay reerihii ku dhexdhaceen ayayba isla markiiba la kulmeen barni oo aqalkeedii hor fadhida oo cadceed galabeed la muuhdo oo dhiilal cuganaysa kadibna iyagoo aan cidna kala tashanin cidna weydiinin ayay gacanta soo qabsadeen way la soo tageen reerka ayay sheedda kore ka mariyeen qamaan iyo rag kale oo weli taladii u fadhiya ayaa waxay maqleen dhallinyaro reer ku soo socota oo alalaasaysa bannaankay istaageen mise waa dhallinyartii reerka oo barni sheekh cabdulle la socoto oo ku wiglaynaya qabiilo nin sheegtay waa qaranay qamaanshow muxuu qoslaayaa halkaa ayay mar labaad barni gurigii qamaan ku soo noqotay iyadoo aan dagaal ka dhicin dhiigna aan loo daadinin kadib maalmaha ka mid ah ayaa iyadoo reerka joogta waxaa u yimid dhowr wadaad oo ciddooda ah dabadeedna gogol bay u dhigtay markii uu qamaan guriga yimid ayuu nimankii toyday waxaa la yidhi waa wadaaddo barni la dhashay markii wadaaddadii la sooray ayuu qamaan tiriyey gabi halkudhegiisu ahaa abbayoonis mooyee wadaad eera taannahaye mar hadduu ubiya loox sitana waa allow sahale abaskuulna waa ugu necbahay uumi oo idile ardaaga uga kaca inantu waa taydun erideene inkastoo qamaan arrin khadhaadh oo aad u foolxun lagu sameeyey xilaha in la kala dhacanayo soomaalida dhexdeeda godob weyn ka ahayd oo dil iyo dagaalba keenta haddana barni wax dagaal ihi kama dhicin labadii reer ee godobtu dhex martayna kuma ayna diririn barnina sidaa hawl yar ayay qamaan gurigiisa mar labaad ugu soo noqotay dhegaystayaal waxaa halkaa inoogu idil sheekadii qamaan bulxan iyo barni sheekh cabdulle aw cali waa inoo mar kale iyo barnaamijyo xiiso badan oo kuwan la mid ah haddii eebba idmo